waxaa toddobaadkan magaalada Muqdisho lagu soo bandhigay buug ka hadlayo kala qaybintii Soomaalida qarnigii 20aad buuggan oo uu qoray Dr. Cabdullaahi Cilmi Maxamed Asad oo ah cilmi baaris sare oo taariikhda dalka iyo dadka wax badan ka og ayaa buuggan waxa uu kaga hadlay sooyaalka Soomaalida iyo sida gumaystuhu u kala qaybiyay munaasabad ka dhacday Hotel Afrique ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ka soo qayb galay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo musharaxiin madaxweyne bahda qalinleyda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan dhammaan marti sharaftii ka hadashay bandhiga buugga ayaa u mahadceliyay qoraaga dhiganaha ayna isku raaceen in buuggan uu yahay dhaxal anfacaya qof kasta Soomaaliyeed wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ahna musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geele wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Professor Cabdullaahi Sheekh Ali Qoloco ayaa xusay in loo baahan yahay in dhalinyarada la baro taariikhdooda si ay u ogaadaan halka sooyaalkoodu uu jiro waxaan leeyahay odayaasha maxaa dhacay inuu qorshaha si fiican u aqaanay maaliyadda waxaa haddaadan wixii shalay dhacay aadan ogeyn waxa maanta jooga waxba kama qaban iishu bilowdaa dhalinyarada waa kula talinayaa aadan u aragnaa way riixtamaan war dhaxalka naga qaata sidoo kale goobtaas waxaa ka hadlay Professor Maxamed Cilmi Tooxo oo ah akademiyadda cilmiga fanka iyo suugaanta waa inaan meelo yar ka taabto doctorka waxaan leeyahay waxaad sheegtay si dhulka loo kala qaybiyay sida Soomaalida loo kala sheegtay marka waxaan rabaa doctorku in kastoo buugga uu yahay hadda buugga soo qoran yahay buugga mawsuuca waay oo mawsuucu buuggan buug qof inta qaada karo akhri kara ma aha waxa waa buug la dhigayo jaamacadaha iyo makaatibta la dhigayo guryaha dhiganayo qofka buug mawsuuca waay gudoomiyaha naadiga akhristayaasha Xamar Injineer Cabdiraxmaan Ibraahim waxaan abaabuleeyay isku aasaasay dhalinyar dalka wax u qabata oo ugu qabata maskaxdooda wixii ay ka soo saareen wixii la qoro ayaa dhaxalgal noqda oo dalka waxa yukusimaha gudoomiyaha ahna gudoomiye ku xigeenka akademiyad goboleedka afka Soomaaliga aga xildhibaanad Maryan Cariif Qaasim ayay luqadu waa asalka qofnimada وأثر في الدمدة وأثر في الدولة الدمدة وأسكو أقولنا سلام عليكم ويورا هبل هبل وافي عنها مكة إسلامنا وأذكر أن أفصولانا أنا وديار إسلام أنا بطريقية سنتقن دريد مرينا وأسكو كرنا أنت سوايا أنت اسمك محمد داهر أفتح شغلة أسقطك أنا أول مكة عندنا الأوها هذا مرة أنت جاي أنا حريستينا وحنكسي أيسي هاي أو قدومي إن شاء الله تعالى أن يلا مقعاودوها iyo sidoo kale qoraaga buugga Dr. Cabdullaahi Cilmi Maxamed Asad ayaa ka hadlay ujeedkan iyo sida uu ugu faraxsan yahay hadda inta qaado heesta calanka yawa dhammaantii waxa ay soo tooso ma inta badan ma qolaba calanke ruwa ayno inaga كنوا إركو كارين عائلة هذا والله بقول صنع دمبي حتى قالي إن الجود بدن الطريقات بدعني عن كفني وقرارات فربان دعي أما أنا عن كنا أبغى الحكينا فرينت وبنا يبغى بهجة عبد الله رجا TV مقدش